معهد كسمدون علمي باريستا نبض استراتيجية ayaa soo qaban qaabiyay tababarkan oo socday muddo 10 maalmood ah waxa uu ku saabsanaa xoojinta kaalinta ka qaybgalka dumarka ee arrimaha nabad dhisidda iyadoo loo marayo abaabulka haweenka gobolka Banaadir tababarkan ayaa loo qabtay gabdho aqoon-yahano ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir munaasabada xiritaanka oo lagu qabtay xarunta macadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka kala socday labada aqal arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan Bilan Ahmed oo kamid ah ardaydii ka faa'iideystay tababarkan ayaa u mahad celisay macadka Samadoon iyadoo sheegtay muddadii uu tababarkan socday in ay wax badan ka faa'iideen iyo aad mahad gooni ah u leh bahda Samadoon ayagana si haagan la'aan ah noogu suurtageliyay inaan ka qayb qaadano barnaamijka wuxuu ka hadlayay nabadda dhisidda nabadda iyo haweenka siday nabadda uga qayb qaadan lahaayeen marabina hadalku ku sii dheeraad waxaan rabaa inaad mowduuca sii dhexgalo mowduuca aan si gooni ah loo baro asbuucan oo marka meeshaan imaanayna qaarkeed wax badan oo soo koogay waxa waaye dhisidda nabadda iyo doorka haweenka nabaddu ay ku leeyihiin waxaan bahda Samadoon Institute leeyahay waxa sameeyeen dadaal xoog badan runtii aad u fara badan oo macallimiin kala duwan oo khibrad ku filan leh cilmigeena barayeen inay siiyeen cilmigaas asaga ah iyo xoog iyo juhdiga ugu bixiseen waxaan leeyahay wuxuu leeyahay rajo fiican in laga miro dhaliyo sababtoo ah sababta waxa wax barteen gabdho kaliya ma waxa barteen gabdho aqoon-yahano ah oo wax bartay maskaxdooda nadiif yahay age-kooda uu yar yahay oo generation fiican oo raba inay nolol fiican helaan rajo ah ku jirta ayaa wax barteen annaga marka waxa naga go'an ka gabdho ahaan in jiilka cusub anaga aan soo saareyno ay noqdaan kuwo dhan kasta ka diyaarsan agaasimaha macadka Samadoon ee cilmi baarista nabadda iyo istiraatiijiyadda Dr. Awiis Sheekh Axmed ayaa sheegay inay si laba jibaari doonaan dadaalada ay ugu jiraan tababarada noocan oo kale waxa ay furan kaliya waxay tahay inaan u mahad celiyo ilaa intii gacan ka geysatay barnaamijkan inuu tabagalo oo heerka maanta aan taagano gabagabada inuu soo gaaro runtii gacan ka geysatay laantoona ay suuragal noqdeen in barnaamijkan soo gaaro sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macallimiinta runtii waqtigooda qaaliga bixiyay ardadii waqtigooda qaaliga bixiyay barnaamijkan ka faa'iideystay iyo in alaalinta dhiirigelin noo sameysay runtii nagu daabagelisay Samadoon mar walba waxay u taagan tahay in wargalaha noocan ay qabato waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inuu noqdo sanad aan laba laabno jidaalkeeni barnaamijyada qaba jirnana aan si laba jibaarno haddaan ugu yaraana labada bilood maba inaan barnaamij noocan aan qaba doono oo aan uga faa'iideynayno bulshada Soomaaliyeed hadda jeeraan aan ka hadli doono topic aan islaanahay waa waxtar u yahay bulshada Soomaaliyeed wuxuu nala xiriiraa hadafka ujeedada macadku leeyahay in la gaaro bulsho xasiloon dal nabada oo horumar gaaray xildhibaan Taxaawo iyo xildhibaan Saleebaan oo soo xiray munaasabada ayaa bogaadiyay dadaalada uu ugu jiro macadka Samadoon dhisidda nabadda hadii gabdhuhu ama dumarku hadda la eego wax ay nabadda ka qaban karaan waa door aad iyo aad u muhiim ah waxay ka qaban karaan sida aan sheegnayba wacyigelinta ka qayb qaadan karaan waxay ka qayb qaadan karaan maaragtay inay sameeyaan oo ay sameeyaan ururo nabadda ka shaqeeya ay dadka wacyigeliyaan waxa in badan la aaminsan yahay inay ka dambiyar yihiin ama ay ka dhib yar yihiin marka la eego xagga dhibaatada iyo nabadgelyo darrada dumarku way ka dhib yar yihiin ragga sidaa daraadeed bulshadu in badan dumarka ixtiraam bay u haysaa waxa laga yaabaa in badan idinku waxa tiraahdaan dadku inay qaataan laakiin raggu waxay u sheegayaan aysan qaadan haddaba sidaa daraadeed waxaad u baahan tihiin inaad idinkuna dowrkeena garataan aad fiirisaan makaanada islaamku ee dajiyay dowrka aad ku leedihiin bulshada idinkuna aad ka faa'iideystaan marka ayada ah intan oo gabdho ah oo dhalinyaro ah oo heer jaamacadeed ah oo u diyaarsan in ay qayb ka qaataan buuxiyaan kaalintooda mugga leh ee u banaanaatay ee nabadda aad ugu faraxsan waxaan aad u soo dhaweynayaa macadka Samadoon يعني ما أنت ديرة ساري waxaan aad ugu faraxsanahay mowduucyada aan aad ka doodeen muddada soo wadeen heshiisiinta siyaasadeed muxuu ahaa nabadda iyo dhisidda iyadoo maaragtay loo marayo abaabulka haweenka xaqiiqdii Soomaaliya waa la dagaal sokeeyaa galay ma jirto
reer maanta wax uu sheegan karo oo la leeyahay reer hebel maxaa kaaga maqan oo lagaaga soo qaadaa oo maaragtay aad leedahay waxaase iga haystaan hal iga soo qaado aad leedahay oo jirto ma jirto reer macnaha wax ka maqan yihiin oo waxa hal iga keeno ma jirto marka waxa waaye wax aan la garanaynin baa la isku laayay sidii marka gacanta way ka dhacdeen nabaddu muddo dheer bayna qaadataa maaragtay in dib loo soo dhiso nabadda marka way farxad gelinaysaa waanu ku faraxsanahay inuu macadku tallaabo u qaaday cabdulaahi maxamed warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Muqdisho.